madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Xaaji Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli ayaa maanta magaalada Boorama kaga qayb galay xafladda qalin jabinta dufcadii 8aad ee jaamacadda ee magaalada Boorama. Munaasabaddan ayaa waxa ka soo qayb galay iyaguna xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland, mas'uuliyiin ka tirsan golaha baarlamaanka iyo golaha guurtida Soomaaliland. Jaamacadda ee magaalada Boorama ayaa maanta waxa ka qalin jabinayay ku dhawaad 310 arday oo dhameysatay dhammaanba kulliyadaha ay bixisay jaamacadda ee magaalada Boorama. Waxaana markii ugu horeysay maanta ka qalin jabinaysay kulliyadda master degree-ga oo ahayd markii ugu horeysay ay ka qalin jabiyaan arday. ugu horeyn haddaba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda ee Dr. Maxamuud Xuseen Cige waxaanu yiri sida tan: markaan arkay marakicii tacliimeed iyo natiijadii imtixaanaadka kala duwan oo qiraya inaad soo dhameysateen dhammaan shuruudii la idinka baahnaa iyadoo la tixgelinayo sharciyada iyo qawaaniinta waxbarashada tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaan aniga oo ku hadlaya magaca jaamacadda eelo si sifo sharci ah aan idin guddoonsiinayaa shahaadooyinka kala duwan ee aad mutaysateen dhammaantiinba. hambalyo oo fadhiisan kartaa. geestooda waxaa hadalka iska daba qaatay xubnaha golaha wasiirada ee munaasabaddan qalin jabinta ee jaamacadda eelo maanta kala soo qayb galay, waxaana iyaguna dhammaantoodba u hambaliyeeyeen qalin jabiyayaasha maanta ee halkan ku sugnaa. looga hadlo siyaasad ama la siyaasadeeyo ma aha xaflad siyaasadeed, waa xaflad macnaha qadarinteeda iyo mansabkeeda iyo farxadeeda ay idinku leedihiin. intayada halka fadhiyada marka lagu daro xitaa madaxweyne ku-xigeenka taageerid iyo sujaacad inaan iskiin garab taagno baan halka maanta u nimi. maanta waa maalin aad u qiimo badan runtii. waxaan leeyahay marka hore hambaliyo, waxaan aad iyo aad u hambaliyeynayaa oo mudan in la hambaliyeeyo waalidiintii dadaalka badan iyo juhdiga badan in soo galiyay ee waliba in suura galiyay inaad maanta qalin jabisaan oo maalin walba in la daba joogay oo agaasimaha guud ee tacliinta sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka wakiila wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ahna arday ka mid ah ardayda maanta qalin jabinaysa. waxay farxad weyn ii tahay inaan maanta idin kala soo qayb galo qalin jabinta jaamacadda eelo oo aniga laftigayga waan ka mid ahay. waxaan leenahay ardayda maanta fadhideen meesha u joogno ma sha Allah mabruuk baan leenahay moogta ilaahay isha idin garamariyo. barakallahu fiikum. waxa weeye ardayda qalin jabinaysa aad iyo aad baan ugu ducaynayaa. waxaan leeyahay barakallahu fiikum wa fi cilmikum. golaha deegaanka aniga sharaf bay tahay maanta aniga oo ku cusub xilka inaan la kowsado jeel cusub ama aqoon cusub oo ku soo kordhay degmada Boorama. maanta halkan waa xano farxada inaan ka soo qayb galo jaamacadda eelo qalin jabinta ardayda jaamacadda eelo. marka hore ardayda waan u hambalyeynaya. waxaan hambalyeynaya dhammaan ardayda ka qalin jabinta jaamacadda eelo. waxaan ku hambalyeynaya, waxaan leenahay hambalyo dhammaantood ardayda digriga koobaad, ardayda dibloomada iyo ardayda masterta ka mid ah. waxaan leenahay hambalyo waan leeyahay. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayli waxaanu ka dhawaajiyay sida tan: waxaan u mahadnaqayaa runtii jaamacadda eelo oo idin soo saartay ama idinku soo dadaashay muddada tacab badan in gelisay. runtii macallimiinta iyo maamulka aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaa kaloo u mahadnaqayaa waalidiintii inagu soo tabacday 16 sanadood qalinkiiyo buugay la daba joogtay. ilaahay ka jisaaysiiyay aad iyo aad baan waalidiinta ugu mahadnaqayaa. ardayda oo maanta kuwa maanta xafladda iyo maartay ururkani aan isku nimidnay iyaga loo dabaaldegayo. idin waxaan ilaahay laba arrimood mid waa hambalyo. ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, mas'uuliyiinta jaamacadda eelo iyo maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama, xubnaha golaha wasiirada ee xafladani ka soo qayb galay ayaa si wada jira waxa uu soo kormeereen dhismaha kambaska cusub ee jaamacadda eelo ay ka dhisanayso koonfurta magaalada Boorama. Xuseen Caataye, Jaamac Xuseen Gaafne, telefishinka caalamiga Universal TV, magaalada Boorama.